Magacaygu waa Maxamed Cabdiqayr xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Lafey. Aniga iyo odayaashan walaalay waxaan meeshaan iskugu imaadnay intaan baaq tacsiye aan u dirna nimanka walaalahayn oo laga geeriyooday Saki magaalada Bambo West dhibka ka dhacay daraaddeed ayaan inta iskugu imaadnay intaan baaq tacsiye aan ka dirna. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ciddii laga dhintayna ilaahay sabr iyo imaan ha ka siiya. nimanka walaalaheen oo dhintayna waxaan leenahay insha allahu kuwii jannatul firdaws ku waara ilaahay ha ka dhiga. marka intaas ayaan tacsiye u faraynaa dadweynaha meesha degan oo jiiraanka waxaan u baaqaynaa si nabad intay ku wala degnaadaan. nabad bay ku degnaayeen ilaa saaki dhacdadan ka dhacday ka horo. haddana waxaan leenahay insha allahu nabadda intay ku wala noolaadaan, jiiraannimadii la fiiriye, walaaltinimadaas la fiiriye, oo saas islaamnimada wax kulli intay fiiriyaan waaya. marka waxaan leenahay hawshaan dad baa ku jiri oo hadda xiisada keentay. culamaa baa ku jirti, odayaalaa ku jireen, siyaasiyiinta hadal meel fiican baas hadda mari hayaa. hawshu way soo dhammaan insha allahu si fiican ayna ku dhammaanaysaa. marka dadka walaalahayn waxaan u baaqaynaa dhib intaan noogu ekaada, dhib kalena ay keensanin. maxaa yeelay haddii la dhaha maanta anaa intaan leega dili biri waan soo dili waan soo aarsani, daduna meesha masaakiimo ayaa ku dhammaanaya, wax kale ay soo kordhinaysa ma lihin. marka waxaan leenahay dhib intaan ha noogu ekaada insha allahu, xalna waa laga gaari doonaa, hawshaan waa la dhammayni doonaa. hadda county government ololo fiican ayay wadaan, national government sidii camal. marka annaka madaxdina waa isu imaadnay, wala hadal ayaa socdo. marka tii unaan xoog siinaynaa dadweynaha marka deegaamahaas degan Mandera North iyo Lafey. waxaan leenahay jiiraan ayaas tihiin, jiiraannimada ha lagu noolaada, marka dhib dambana as dhicin. marka intaas ayaan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan halkan ka diraynaa tacsiye tiiraanyo leh annagoo u dirayna dadka walaalaha oo ku geeriyooday si qafla ah saaki naftooda ku waayay magaalada Bambo. dhacdadaas aad baan ugu xunnahay, raalli kama nihin, mar aan raalli ka noqonayna ma lahan. gacantii gardaran mar kasta waan cambaaraynaynaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ninkii gardaran oo tillaabooyinka xunxunnaa noocaan maaragtay bilaaba inuu ilaahay maaragtay yacni ummadda ka qabto ayaan ilaahay ka baryaynaa. waxaan dadweynaha isla degan oo jiiraanka walaalaha aan ka codsanaynaa in nabadda la siiyo, waqti la siiyo. wada hadal baa socdo, culamaa maaragtay ayaa joogta, dhulkii joogta oo hadlaysa oo dadkii maaragtay isu keeni haysa, madaxdii baa qaylin haysa oo Nairobi joogta oo Mandera maaragtay meel kastaba joogta, odayaashii baa saa u kala socda habeen iyo maalin. waxaan ka codsanaynaa dadweynaha in ay tilaabo gacantooda ay qaadin, inay waxii maanta dhacay yani mar dambe nagu soo noqonin. waxaan dadweynaha ka codsanaynaa annagoo magaca ilaahay maaragtay yani ku baryayna inay ka joogaan. ninkii dhinta waa dembiile, aakhare wax kaga horeeya ma lahan. adduunkana waxaa waa ilmihiisu ka tagayaa maaragtay iyagoo agoon ah, maxaad ka faa'iidaysaa? marka waxaa fiican in nabadda la siiyo nafaas, nabad baa naasna lagu leh. waxaan ilaahay maaragtay ka baryaynaa ummaddan walaalaha inuu qalbigooda isu soo jiida, nabadna lagu hela. wabilaahi towfiiq. السلام عليكم. وعن تعزيه ودرايا أما أنا كده مانتاي dadka laga dhintay ama laga geeriyooday magaalada Bambo oo si qalad oo magacan xaq aan lahayn ku dhintay. waxaan leenahay labada cidood oo dhaxdooda is haystaan waxay maanta ka dambeeya inaad dhib kalaas dhicin. saad ogsoontihiin beryahan waxaa socday arrin nabad lagu raadinaya oo ay ku wada hadlayeen labada cid oo haddana arrintaas ay gabgaba ay ahayd. marka arrinta maanta dhacdi aad ugu xunnahay. waxaan rabnaa labada cidood ama labada qoys waxay maanta ka dambeeya inay gacan qaadin oo arrintii si xal leh ama wala fadhi ama wala hadal lagu dhameeyo. marka waxaan rabnaa anaga qaasaan ciddaan maanta meeshaan ku fadhina waxaan soo sheegnay arrintaas inaan istaajino tolka anigaan ka dhalin aan la hadalna mar dambe arrintaas inay dhicin. marka dad kale walaalahan ayagana waxaan rabnaa inay arrintaas ayagana ay ka shaqeeyaan wax kasta
aan fadhi iyo wala hadal aan ku dhamaysanno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وغرينتي وحن تعسية تيرانيا لو درينا دكي ku geeriyooday Bambo West wasaaki aroortii ku dhintay meeshaas ay ayaan tacsiyo u diraynaa waxaa si gaar ah aan tacsiyo ugu diraynaa dadka reer Bambo West waliba khaasatan cidihii laga geeriyooday waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah insiiye inta dhimatayna Allah u naxariisto waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Mandera khaasatan reer Mandera West reer Mandera North iyo Lafey inay si fiican ay nabad ku wada noolaadaan mar dambana dhacdaal noocaas oo kale ay dhicin waxaa dadaal badan ay hagaajinayaan mas'uuliyiinta reer Mandera waxgaradkooda iyo siyaasiyiintooda iyo culamaa diinka in labadan beelood hawshooda la soo gabagabeeyay sida runtii ahna aakhira ahayd wax yar ka dhinay marka waa arrin nasiib darre ah arrintii meeshaas ay gaartay in dib nool rarhad waxaa si gaar ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiintii ciddii laga geeriyooday oo sida runtii soo baxeen oo arrintaanaytu indana nabad ugu baaqeen labada beeloodan si gaar ah mahad ugu celinaya marka waxaa iga tale ah mas'uuliyiinta countyda national government culamaa diinka in arrintaanaytu kaalin fiican ay ka qaataan si loo gaaro nabadgeshino waarta weligeed والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله عبد النور كيسي وأنا هلكا تعسي ودير يا ولي بتيراني له رجع ساكي كوجيريودي بامبو ويست وقعن كهقدرنا يمشي كدشي وأرين أن آد وحنا هاي آد لو وحنا هذا ننكسو وحجرنا آد وحنا waxaan dhihi lahaa Soomaalida hore waxay dhihi jirtay warankay qad walaalkay dhimay ninka wax fahansan horta intaas uu fahmaya waxaan leenahay tacsiidi iida oo ku socoto beelweynta abkay digoodii gaar ahaan ku socoto reer abkay Masar tacsiidi iida hana deeqda wax dambo naga dhiman lahay aan tabarteena wixii ay tahay aan isku geyna waxaan wada hadal ku dhameysana dhiig muslim oo dhul ku daatay baraka la'aan buu keenaya dhulka aad naga baraka la'aan ay noogu sii dhicin abaara laga soo baxay had waa la wada roonay waxaan dhihi lahaa aan wada hadalka miiska wada hadal ku soo noqonna idinkana samir iyo iimaan Allah insiiya ragii dhintina gacan ka haqdarana dishay jannatul firdaws kuwii galay ayaan u rajaynaynaa inay yihiin bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah tacsiyo tiiraanyale aan u diraynaa dadka walaalaheen ahay qaraabad ahay godobta ahay jiiraanka ahay ee saaki ku geeriyooday Bambo West oo gacan ka xaq daran dishay ayaan tiiraanya tacsiile u diraynaa anagoo aad ugu xun oo ka murugoonayno ayaan dadkaas tacsiile u diraynaa dadkii qaraabadii ay ka dhasheen guud ahaan familka guud iyo familka hoose ay ka dhasheenba samir iyo iimaan Allah ka sii ayaan gacan ka xaq daran baa dishay jannatul firdaws Allah ka waraabiyo inta kadib waxaan xoogaa baaqi u yardiraa labada famil ee walaalaha ah jiiraanka ah dhacdaan foosh xun bariyahaanba ay qaab socodkooda nabadda qaabka u wadeen ay fiicneen laakiin dad odayaal ah wanaag jecel madaxda waxaa la waday nabad geedi socodkeeda Nairobi aad baa arrinta ayada looga waday maanta lafteeda waa la ballansanaay xoogaa dadkii arrintan dhacday darteed ayaa la iskugu soo noqon waayey waxaan codsanaynaa warna dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho haddii maanta biri caawa la aarsado birina waa la aarsanaa biri waa la aarsanaa biri dambaa la aarsanaa boqol markay dhimato haddana miiska la iskugu soo noqonaya walaalayaalow dad muslimiinaan nahnay aakhiradeenna aan ilaashanno nin walba qabri yaraa la dhigaa oo 1 mitir ah ayaa la dhigayaa qabiil waxba kuu tari ma hayo arrintaas ayada aan aad ugu fiirsanno nabadda aan ku noqonno miiska aan ku noqonno shaydaanka aan iska naarno shaydaan baa naga faa'iideysanaya aad u farxaya arrintan ayada ah aan xag u joosano aan acuudu bilaysano aan ilaahay xagiis u noqonno aan miiska wada hadal ku soo noqonno dhacdadaas oo kale inay nagu dhicin mar kale aan ka taxadirno walaalayaalow السلام عليكم.